magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxa lagu qabtay barnaamij loogu tacsiideynay Rabbi naxariisti janno ha siiye Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax. barnaamijka tacsiidaasi oo uu direeyay madaxa hay'adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ahna imaamka masjidka Daarul Hijra Sheekh Cabdiraxmaan Shariif Maxamed. waxaan halkan uga darayaa tacsi muxuu tiraanyale oo naxdin leh anigoo ku hadlaya magaca hay'adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka heladii iyo qaraabadii iyo ummadii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax. sheekhaas xaqiiqatan dadka Soomaaliyeed ay ku yaqaaneen diin akhlaaq wanaagsan iyo inuu in fara badan dadka maslaxadooda iyo danta caamka ah uu uga hadlo. waxaan aad iyo aad aan uga xunnahay geeridaas ku timid ee aadka u foosho xun sida aan akhlaaqda iyo diinta midna waafaqsanayn sheekhaas maxaa loo dilay. waxaanse ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala sheekha inuu jannadiisii firdowsaad uu ka waraabiyo. xaqiiqatan dilka qofka muslimka ah la dilo diinta islaamka meel adag bay geysay. ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaahu jahannam ilaa marka aada ay sii socotay oo qofkii qof muslima si kasta u dila abaalmarkiisu waa jahannamo weeyaan. jahannamo markii la geliyo uu ku waaraya markii jahannamo uu ku waaro ilaahay baa lacnadaya subxaana wa tacaala. lacnada waxaa usii dheer oo kaleeto cadaab aad iyo aad u xanuun badan ayuu rabbi siinaya subxaana wa tacaala. marka qofka muslimka dilkiisu waa sidaa markii uu qofku caalim yahay qofkii bulshada indhaha u ahaa uu yahay qofkii bulshada wax taraya uu yahayna way ka sii xag jirtaa. marka guud ahaan dilalka noocan oo kaleeto ah ee dadka waxgaradka ah bulshada ha noqoto culimada ha noqoto dhakhaatiirta ha noqoto injineerada ha noqoto muxuu ahaa dadka muxuu wax baranaya oo ardada jaamacadaha ha noqoto dadka xataa salaadiinta cuqlada ah lagu beegsanayo dilkaas isagoo dil waliba uu xaraam yahay uu ka sii dambi badan yahay uu ka sii falxuma badan yahay uu ka sii akhlaaq xun yahay. maxaa jira indhihii bulshada ayaa muxuu ahaa la baabi'inaya indhihii bulshada ayaa la rabaa in la dabar gooyo. arrintaa marka waxay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed oo wada jirta culimadeeda iyo waxgaradkeeda iyo dadkeeda akhyaarta ah inay isweydiiyaan wardhibkan maxaa keenay maxaa looga bixi karaa. maxaa jira xaqiiqadu waxa weeye waxaa la yiraahdaa ummadu dhib ay ku jirta kama baxdo ilaa ay garato dhibka goortay gashay iyo say u gashay. marka waxaa muhiim ah inaan isweydiino wardhibka noocan oo kaleeta ah dilka noocan oo kaleeta faasho xun ee waliba magaca diineed la adeegsanayo ee magaca diineed la isku baabi'inayo ee maanta ay soo gaadhay meelaha ugu amni xun Soomaaliya inay ka mid tahay masaajidu oo qofku uu salaadii ilaahay subxaana wa tacaala uu jamaaca ku soo tukan lahaa uu cabsi ka qabo ma gudaha masaajidka lagu dilayaa ma iridiisa lagu dilayaa adoo sii baxay ama adoo soo galaya heerka in ummadii la gaarsiiyo oo waliba dadka waxa sameynayaan ay magac diinad adeegsanayaan xaqiiqatan waa ayaan daro aad iyo aad u falxun weeyaan. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif Maxamed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dilalkan loo geysanayo culimo u diinka suxufiyiinta indeergaradka aqoon-yahanada marka ugu horeyso waa maxay baad isleedahay waxa sababi kara ee keenay. bismillaah alxamdulilah muxuu ahaa shariga batoo waa arrin aad iyo aad muhiim ah. waxaan laga yaabaa asbaabo fara badan inay keeni karaan laakiin mid ugu muhiimsan waxa weeye qofka oo fikriga ama maskaxda wax khalad lagaga shubo taasoo macnaheedu uu yahay qofka in loo tusiyo bulshadu inaysan muslim ahayn asaga mooyaane ama bulshadu inaysan muslim ahayn asaga iyo groupkiisa iyo intuu markaa isagu la fikri ah mooyaane. taas weeye mid ugu badan oo keenaysa waxyaabahan oo kaleeto. mushkilada marka waxaa asal u ah dadkan mushkiladan hadda sameynaya dilalka noocan oo kala sameynaya waxay qabaan jiro maskaxi ah oo ah inay iyaga kaliyuhu muslimiin yihiin ama muslimiinta saxda iyaga kaliya inay yihiin dadka intooda kale inaysan muslimiin ahayn ama islaam sax ayna haysanin. taas marka waxay keenaysaa inuu qofku uu ku fududaado ama u sahlanaato qofka dhiigiisa inuu banaysto oo aadka u sifaalka xun oo aadka u ayaan daran. marka waxa keeni kara waxa weeye aniga kaliya ama majmuucadanada ayaa muslima dadka intooda kale muslimiin ma ah. taas marka u sahlaysa qofkii inuu kan tukanaya gaal buu u arkaa kan uu ka soo baxaya salaada masaajidka gaal buu u arkaa kan sii galay masaajidka gaal buu u arkaa kan baarlamaanka ku jira gaal buu u arkaa madaxweynaha gaal buu u arkaa wasiirka gaal buu u arkaa sheekhan isaga afkaartiisa khilaafsan gaal buu u arkaa jamaacada kale ama ururka kale tan afkaartiisa ku qanacsanayn gaal buu u arkaa. marka bulshada oo dhan waa wada gaalo annaga ama majmuucadanada mooyaan
yani sidaasuu qofkani rumaysan yahay taasaa marka waxay ku dhiirigelinaysaa dadkan dhan ku janno tag marka anigoo ah Shiro Warsame Galbeete telefishinka qaranka xagga kaameradana waa soo saaraha barnaamijka Liibaan